السلام عليكم ورحمة الله وبركاته janalkeeni fano leekhan netherlands taal barashada luuqadda af netherlandka waxaan soo gaarnay wax lagu magacaabo lestvey casharka labaad luuqadda haddaad doonaysa inaad barataa marka hore waxaa muhiima inaad aasaaska ogaato maxaa la dhahaa alifbeetada waa casharkeeni koowaad u ahayd waxaa lagu magacaabaa clink mediclink oo soo qaadana iyagana shaqal iyo shibano waxaa tirahdaba maanta waxaan u gudbaynaa b f waxa lagu magacaaba personis form personis formka mar wuxuu noqdaa af soomaali markaa fiidhiso magacyaal marna wuxuu qaqonaya midka shaqada qabanay kasoo qaad haddii lagu dhaho adiga iskuulkaad aaday persona formkaaga magacyaalka wuxuu noqonayaa oo pronounkaagii adiga haddana iskuulkii la aaday aaditaankii ayaa waxay noqonaysaa shaqadii la qabtay labadaba uu gelaya marka sidaa daraaddeed persona form kaasaa lagu magacaabo waxaan leedahay ikbin aniga haddii aada su-aal ka dhigaysana hadhow oo rabto qof aada wax weydiso beni eg aa leeda waa kala wareejinaysaa marka yey bin of yebent ama ubent yey waa adiga u ay ka timid una waxaa lagu magacaabaa labada eray formal informal qofkaada isticmaalay waxaad qofkaada aqoonin ama aada garanaynin waxaa leedahay hu khaatad mid yaaw meesha lagu dhahayo mid ay noqonaysaa marka see tahay adiga markii lagu dhahayo hey is isaga waxaa lagu magacaabaa der the person qofka saddexaad waa third person waa qofka saddexaad adiga maahin idinkana maahin waa qof kaloo farta ku fida aada leedahay jaamac markaad sheegto ama cawil ama warsama muxuu noqonayaa deerti berson qofkii saddexaad waxaa leedahay say is iyada marka xasuusno markastaba muhiim bay ku tahay adiga waa magacyaal haddaa say laga bixiyo maryana gelaysaa faatima gelaysaa waxaa gelaysaa waxaad tiraahdaa anita gelaysaa marka magac gabdheed ama magac dumar ayaa halkaas gelaya waana qof saddexaad waay iyadana waa qof saddexaad maahin adiga waa qof kale adiga wada joogno hadlayna waxaan leenahay iyada say is vey waxaa lagu magacaabaa inaga wi ayay ka timid englishka waxaba laba markaad leedahay yuli idinka waxaad leedahay axmed an maryan yuli ayaad ku magacaabaysaa idinka zayntu way daba socotaa waxaa halkan ka maqan wax lagu magacaabay seda say ayay la mid tahay waa s zod e oo ah dad badan sesayn iyaga waxay yihiin marka af soomaaliga saxa waa aniga ikbin yeypin adiga ubint qofkii saddexaadu marka adiga lagu tilmaamaye hey is isaga say is iyada sesayn ayaa jirta idinka vey inaga yuli idinka marka markasta waxaad u baahan tahay ereyada inaad iska saxdo haddaan si kale u dhigno isagoo waaweyn waa ik aniga ye adiga adiga hey isaga say iyada vey anaga vey sayn markii laisku daro waay iyo yuli oo ah idinka inaga
annaga saynta waxa waaye annaga, laakiin qoraalkeeda u malaysay in s e kale ay tahay, marka waxay u baahantaha meesha waa s e kale ama z e wax lagu magacaabo. Netherlands Personoform markaad ka hadlayso waxaad leedahay waa magacuyaalkii ficilkii qabanayay ama qeexis uu qeexayo hawshii la qabtay. kasoo qaad voorbeeld is tusaale wan. Hij woont in Utrecht. Hij woont. Hij waxay tilmaamaysaa is onderwerp. Onderwerpna waxaa la dhahaa mawduucaad ka hadlayso. Woon waa deganaashihii ama ku noolaashihii. ta'daasa waxay tilmaamaysaa in qofka loo celiyo qof saddexaad uu yahay. Hij woont waxa waaye derde person qofka lagu magac isaga wuxuu ku nool yahay in Utrecht. isaga wuxuu degan yahay magaalada Utrecht. marka waxaan yidhi hey is onderwerp waay oo mawduuca ah. woont oo deganaashaha waxa u sameeyey ta'daas. woont ta'diya waxay cilaaqa la leedahay personoformki. bv ficilka caddaynaya qofka oo ah ik meeshaan ka dhihi laha inaan dhaho hey isaga. haddaan ka bedelo marka hey ani isku bedelo waxaan dhaha ik woon in Utrecht. ani waxaan deganahay magaalada Utrecht. markaad doonayso in zinka ama jumlada aada dhisto mar walba luuqadda waxay u baahan tahay qoraal badan iyo akhris badan. marka qoraalkaada kullamaa uu fiican yahay ood fahanto aniga maxaa la dhahaa, iyada, isaga oo ficil jooga hadda tiraado teekvoortitayt hadda waqti la joogo oo just now ah, iyo wax fallaydan ah oo maaragtay mustaqbalka soo socda ah, wax tagaan leeyahay, iyo wax tukumsiyan imaan doona mustaqbalka inaad aada u kala garato. sababtoo hadalka aada hadli doonto wuxuu ku xiran yahay fahanka aasaaska aada luuqadda fahanto. ilan jumladda ma dhisi kartid haddii aadan marka hore waxa fahansaneyn. marka cabsi maaha qofka keenayso inuu luuqadda ku hadli waayo, laakiin qofkaana qof oo ah qof u diyaarsanayn inuu wax qoro wax akhriyo. luuqad iskuul la taga keliya dhaqso kama soo baranaysa haddaada dadaal badan la iman. iskuulka intaad tagtood buugga ka soo qaado ood aan ku magacaabno xeradii geelan u socdaa, arrimahaas waa arrimaha ah inay qowda maqashii meesha ay kaa tahay. waayo personoform waa magacuyaalkii shaqada qabanaya ama qeexaya sheegnay. voorbeeld tusaale kale. ik werk vandaag tot 16 uur. ik werk waan shaqaynayaa aniga maantay. aniga waan shaqaynayaa maantay tot 16 uur ilaa 4 galabnimo ayaa shaqayn. hey waxay tilmaamtay booskeedii oo ah ik a lagu bedelay onderwerp. waxaa leedahay ik is onderwerp waa mawduuc waay. vergna waa shaqadii la qabanayay oo ah personoformki ah, iyo ficilkii caddaynaya oo ah qofkii shaqada qabanayuu yahay. shaqaha la qabtay yaa qabtay, qofkaa qabtay, qofkaasa waxaa leednaa marka waa bvga waay. sidaa daraaddeed marka inta kasoo hartayna waxaa la dhahaa the restful zin. jumlada intay harta ayid. waxaan rajaynaya in aada loo fahmay ereyga ah ik, say, aniga wax la mid ah, hey, in marka kuwaas lagu magacaabo pronoun and personoform loo yaqaano oo magacuyaalka ah. waxaa leedahay aniga guriga ayaana ik ga naar house. ik anigay tilmaamaysaa aaditaankia wuxuu tilmaamayaa ficilkii ah inuu personoformkii uu ku xigo badanaa. waa tegitaankii waa ficil macnaha vergford waay lagu magacaabo shaqadii aada qabanaysay. sidaa daraaddeed marka waxaa leedahay ik ga naar house, guriga ayaana aadaya. ik markaas iyo khaada waxaan ku magacaabayna inay yihiin personoformkii. khaa haddii gooni loo magacaabana noqonayso vergford. onderwerpen wuxuu aada noqonayaa mawduucii halkii la aadayay ayaa markaas igta ay gelaysaa. meesha la aadayana waa xagee, waa guriga. adalka u dambeeya jumlada inta u dambeya saasay noqonaysaa. casharkaas marka waxaan leenahay dhammaad end barashada afholandeeska leeqin Nederlandse taal lestubay. ik hoop
waxaan rajaynayaa in wax badan laga fahmay. kolley waxaan isku dayeynaa in yaroo kooban intii awoodeena. annaga ma nihin macalimiin professionaal ah, laakiin adiga i dhegeysanaya waxaan rabaa inaan kugu baraarujiyo inaad wax baran karto haddaad dadaasho. dadaalaa wuu gaaraa. waxaana rajaynayaa dhammaan walaal kasta ee wixii uu fahmay isaga ama yaqaano inuu ummadda usoo gudbiyo. dad badan oo jiro wax kan badana dad badan oo iga cilmo badan laakiin iska fadhiya oon jeclayn dadka inay wax soo gaarsiiyaan. fadlan subscribe channelkeena ama gabaleelka riix si aad macluumaadka